waxay cabarasaaka hirtii hore markii wasiirka qorshaynta qaranka Somaliland Ali Xuseen Ismaaciil Ali Shombe maarayaha wakaalada biyaha Hargeysa Injineer Ibrahim Siyaad Yunis iyo sidoo kale marwe Dr. Eza Adna Aadan Ismaaciil ay si wada jir u dhagax dhigeen dhismo cusub oo laga binayn doono isla xayndaabka guud ee xarunta wakaalada biyaha Hargeysa ku leedahay isla magaalada Hargeysa. Dhismahani oo loogu talagalay inuu xarun noqdo qalab cusub oo lagu tayin doono biyaha soo gaara gudaha Hargeysa kaliya aan ku koobnayn biyaha wakaaladu maamusho laguna tayin doono biyaha ka soo baxa warshadaha kala duwan ee wax soo saarka dhanka biyaha lagana maalgelin doono sanduuqa horumarinta u qaabilsan Somaliland SDF. Injineer Ibrahim Siyaad Yunis maarayaha wakaalada biyaha Hargeysa ayaa ugu horeyn goobtaasi ka sharaxay dhismahan iyo waxa uu koobsan doono isagoo si gaar ah ugu mahadceliyay cid kastoo ka qayb gashay hirgelintiisa. bisha August 4 in uu joogno dhagax dhigi laab casri ah oo loo sameeyo wakaalada biyaha Hargeysa oo ka kooban dhisme iyo qalabkiisii oo ay maalgelisay sanduuqa horumarinta Somaliland. dhismahana ay fulinayso shirkad Somaliland oo Hilsi Construction Company la yiraahdo. qalabkana ay soo iibinayso shirkad international oo Jarmalka laga leeyahay iyo Ingiriiska. mashruucan faa'iidadiisu waxay tahay noloshu biyuhuna waa nolosha sidoo uu ogsoonahay biyaha Hargeysa imika yimaada iyo kuwa mustaqbalka iman doona aad ku farbaanba waa la ogyahay quality oo biyo aad u fiican hadana waxa daruuri ah mar haday biyihiina nolosha yihiin in mar kasta la jeegarayo maalin walba la jeegarayo halka ka soo baxayaan la jeegarayo halka ku soo dhacaan la jeegarayo halka ugu dambaysa soosko halka qolku ka furanayo qasabada gurigiisa la jeegarayo marka waxa qorshahayagu ahaa anagoo la kaashana wasaaradda qorshaynta qaranka iyo horumarinta Somaliland in Hargeysa yeelato laab casri ah oo wakaalada biyaha Hargeysa jeegarayso. ilaahay baan ugu guuleeyay mashruuca in badan baan hawshiisa ku jirnay. waxa maanta aynu halkan u joognaa dhagax dhigiisii in mashruuca aynu dhagax dhigno waxaan aad ugu mahadnaqay cid ka soo qayb gashay oo ugu horeeyay wasiirka qorshaynta qaranka Dr. Adna Aadan oo ah gudoomiyaha koorka wakaalada biyaha Hargeysa ahna kullay isbitaalka ugu weyn yani adna maternity hospital Hargeysa kullay oo caafimaadka iyo biyaha iyo laabku faa'iido leeyahay hay'adda yoon habtaada iyaguna xafladayna la joogta SDF teamkeeda communication habka iyo saxaafadda kulligiin aad baan ku mahadnaqayaa. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay nooga dhigo mashruuca aan maanta dhagax dhigiisa u taaganahay kii wadanka anfaca ee dadka anfaca ee dhammaan reer Hargeysa anfaca. Dr. Eza Adna Aadan Ismaaciil oo xubinka boorka sare ee gacanta ku haya wakaalada biyaha Hargeysa ayaa iyaduna dhankeeda dul istaagtay ahmiyadda ay u leeyihiin Somaliland bulshada ku dhaqan inay helaan biyo tayo leh. sidaad ogtihiin biyuhu waa nolosha laakiinse biyuhu waxay xambaaraan waxyaabo badan oo caafimaadka waxyeeleeya hadday noqoto wax wasakh ah oo cudur keena oo biyaha soo raaca ha noqoto macdano ku jira dhulka hoostiisa oo biyaha soo raaca oo iyaguna ma caafimaadka bini'aadamka iyo wixii caba xoolaha iyo dadkaba waxyeello u geysta. waxaan oran karaa waa horumarada waaweyn ee Somaliland ay gaadhay. Ali Xuseen Ismaaciil Ali Shombe wasiirka qorshaynta qaranka Somaliland isla marhaantana uu hoos yimaada sanduuqa horumarinta u qaabilsan Somaliland SDF ayaa isaguna dhankiisa sharaxaad gaar ah ka bixiyay ahmiyadda dhismahan iyo doorka dawladda Somaliland ka qaadatay. marka hore ilaahay baa mahad leh. waxaanu maanta halkan u joognaa dhagax dhiga shaybaarka ilaalinta tayada biyaha. waa markii ugu horeysay ee taariikhda Soomaalida maaha Somaliland laga hadla tayada biyaha dadku cabayaan. dawladihii horaanay jirin tii Ingiriiska aanay jirin Turkigii ka horeeyay baanay jirin masaaridii u dhaxaysay baanay jirin 25 sanadood joognay inaan ku talaabsano waxa ka mid ah guulaha waaweyn ee Somaliland gaadhay. iskamaysa iman dad ba ka soo shaqeynayay maalinba dhagax ba meel la dhigayay talaaba la qaadiyay talaabadaas la korinay. waxa xukuumadan hadda joogtay oo hogaaminaya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanya ay ku suntan tahay tii horumarka waxaana tusaale marxaati ugu dambeeyay mid waxa uu dambeeyay ka la siisay waa shaybaarkan imika aan dhagax dhigan kuma koobnaanayo biyaha wakaalada biyaha kaliya warshadaha biyaha soo saara ayaan iyaguna u sheegay ha ku sii tala galaan shaqaalaha laabku iyagoo kitkooda sitay ku imanayna sambalka ka soo qaadeen warshadii quality-ga iyo standardka loo sameeyay ka soo bixi weyda waa laga xidhay dadka la sameyn maayo. hirgelinta dhismahani koobsan doona qalabka lagu tayanayo biyaha Hargeysa
ee mas-uuliyiinta wakaalada biyaha Hargeysa sida weyn iskugu taxaluujiyeen in bulshadooda ay ka qabtiraan biyo nadiif oo tayo leh ee wax weyn ka tari doona sidii bulshada ay u gaadhi laayeen biyo nadiif oo aan haba yaraatee saameyn ku keeni karin noloshooda caafimaad. Mana aha markii ugu horeysay ee mashaariic lagu horumarinayo tayeynta iyo sidoo kale ballaarinta biyaha Hargeysa. Mas-uuliyiinta wakaalada biyaha Hargeysa sidan oo kale ay isugu hawlaan waxaanu mashruucani qayb ka noqon doonaa dardargelinta hawlaha ee xilligan mas-uuliyiintaasi ku fogan yihiin. Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.